taagan ilaahay inay baryaan u yimid horta waxaan leeyahay kulligeen ilaahay ducada ha naga aqbalo sida uu sheekhu noo sheegay waxa ugu muhiimsan oo aan maanta samayn karna waxay tahay inaan ilaahay barin waxaan rabaa inaan idiin sheego sida keliya oon dhibka uga bixi karno waxay tahay inaan aqbalno xaqiiqda dhibka annagaa isu keena mas-uuliyadda ugu horeysana waxay saaran tahay aniga iyo madaxweynaha maanta waxaan rabaa halkan inaan idinkaga caddeeyo dalkan dadkiisu waa inay la xisaabtamaan mas-uuliyiintooda xisaabtantana waa in aniga iyo madaxweynaha nala ka bilaabo annaguna waa inaan inta kale la xisaabtano waxaa naga go-an oon ilaahayna ka faryaynaa inaan ummaddan sida ugu cadliga badan oo aan u dhaqi karna aan u dhaqno sida keliya oo dhibka looga bixi karana waxay tahay inaan aqbalno khaladaadkii aan soo samayno marka aan aqbalnona aan ka heshiino sidii aan uga bixi lahayn waktigii xoolaha waddanka la dhacayo way dhammaatay waktigii la isku xadgudbaayo way dhammaatay waktigii albaabada laydinka xiran jira way dhammaatay waktigii waxaa la soo gaaray cadaaladda iyo isla xisaabtanka waxaana idiin ballan qaadaynaa aniga madaxweynuhuba inaan runta idiin sheegno si daacad ahna aan waddankan ku maamulno maalin iyo laba laguma xallin karo dhibaatada waddankan laakiin waxaan shacabka soomaaliyeed ugu bishaaraynayaa in bilaaw cusub uu bilowday waxaan idiin ballan qaadayaa marka aad qorraxda fadhiisataan inaan idinla fadhiisano marka aad faraxdaan inaan idinla faraxno markaad murugootaan inaan idinla murugoonno wax walba oo aad noo sheegtaan oo dalkani u baahan yahana inaan idin dhegaysano albaabadana aan idiin furno qalbiga adkaysta ilaahay dhibka wuu naga saari doonaa haddii ilaahay idhaahdo ilaahay qalbigeenna ha isu soo dhoweeyo ilaahay dhibka ha naga saaro ilaahay iimaankeenna ha sugo ilaahay cadaaladda hana waafajiyo ilaahay dhibkan ummaddan dhibaateeyey sanadaad badan ilaahayow waan soo jeesanay noo soo jeeso ilaahow waan soo jeesanay noo soo jeeso ilaahow rabbiyow xaqa nagu dub ilaahow rabbiyow isku soo no dhoweey ilaahow rabbiyow qabyaaladana baabisa naga qabo ilaahow rabbiyow adduunyadan aan wax ka raadinayno noogu bedel inaan annagu qalbigeenna iyo annagu wax iska raadino ilaahow shacabka soomaaliyeed isku soo dhoweey ilaahow sharafteenna noo soo celi ilaahow karaamadeenna noo soo celi ilaahow culummadeenna barakeey ilaahow dhallinyaradeenna barakee ilaahow dumarkeenna barakee ilaahow madaxdeenna anugu aan ugu horreeya xaqa waafaji ilaahow xaqana waafaji ilaahow xaqana waafaji ilaahay ha idin barakeey kulligiin